waxaa ka furmay maanta magaalada Boorama hoteelka ku yaala ee la yiraahdo Hotel Rays shir ballaaran kaasi oo ay wada yeelanayaan hay'adaha deeq bixiyayaasha dawladaha hoose ee 6 degmo oo ku yaala Somaliland wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada shirkaasi oo saaka ka furmay hoteelkaasi ayaa ugu horeyn waxaa shirka furay oo halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo isagu markaasi u mahadnaqay hay'adahaasi bixiyayaasha in loo dadejiyo maamulka shacbiga hoos loo dadejiyo iyagu ay baahidooda soo xushaan maayiraday soo doorteen ay ka soo aruuriyaan baahida kadibna dadka private-ka ay ku tartamaan mashruuca fulintiisa si transparent ah kadibna sida wasaaradihii wada lahaa mid walba ay qaybteedii ay ku lahayd in kormeerto sidoo kale halkaasi isaguna ka hadlay duqa degmada Boorama oo isagu marti loo yahay isla markaasina ku soo dhaweeyay marti sharaftaasi kala duwan ee markaasi ka socota adduunyada iyo degmooyinka kale ee Somaliland ku yaala intaba hadii aanu dib ugu noqono kulankan ama shirkan hadda halka la isku yimid inta badan wuxuu ka qabsoomi jiray dibadaha haddii ay dhici weydana caasimada uu qabsoomi jiray Somaliland oo Hargeysa asibay igu tahay farxad inaan ay noqoto sidoo kalena gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Daahir Cabdulle oo isaguna mahadnaqalkaas ka soo jeediyay uu ka hadlay isla markaasina xubnahaasi uu soo dhaweeyay meel ka baxsan caasimada Hargeysa oo ay noqotay Boorama loo qabto aad baan u faraxsanahay anigoo ka wakiila ku hadlaya magaca gobolkan waxaan aad u soo dhaweynayaa halkan wasiirka arrimaha gudaha shirkan ayaa ah isagu markaasi kii ugu horeeyay ee lagu qabto magaalada Boorama si oo ay ku qabanayaan hay'adaha UN-ta ee iyagu markaasi deeq bixiyayaasha ah iyo 6 degmo oo iyagu markaasi ku yaala Somaliland si oo ay dawladahooda hoose ama doomayaasha golaha deegaanka ee degmooyinkaasi ay ka qayb qaadanayaan oo kala ah degmada Boorama degmada Hargeysa Berbera Sheekh Burco iyo Oodweyne halkaas oo shirkaasi 2 maalmood uu ka socon doono isla markaasina lagu lafaguri doono sidii maamul daadejinta 2010-2011 wixii ka qabsoobayna la isku xisaabtami lahaa isla markaasina wixii u dhiman la sii hirgelin lahaa Xasan Ciise shabakada wararka Sirel News magaalada Boorama.